kulanti waxaan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka waa 29 bisha 11 sanada 2018 qodobada ugu waaweyn ee aad barnaamijkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona shirka G20 oo birita ka furmi doona dalka Argentina warar ku saabsan shirka ayaan barnaamijka ku soo qaadi doonaa Putin oo dilka wariye Jamal Khashoggi kala hadli doona amiirka Mohammed bin Salman ee dhaxal sugaha ka boqortooyada Sacuudiga waxa sidoo kale barnaamijkeena ku eegi doona xaakim reer Argentina oo raadinaya in Turkiga iyo Yemen ay ku caawiyaan cadeymo la xiriira kiiska lagu xirayo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga labada wasiir ee ugu awoodda badan Mareykanka oo difaacay kaalinta Mareykanka ee ku aadan dagaalka Sacuudiga uu ka wado dalka Yemen Trump waxa uu qayb ka yahay kuwa qarinaya dilkii foosha xumaa ee loo geystay wariye Jamal Khashoggi Hillary Clinton ayaa sidaa tiri oo weerar ku qaaday madaxweynaha Mareykanka Erdogan oo sheegay in hay'adaha caalamiga ah ay ku fashilmeen qadiyadda Falastiiniyiinta iyo sidoo kale cabsi laga qabo in dagaal weyn uu ka dhex qarxo dalalka Ruushka iyo Ukraine xilli xiisada ka taagan gacanka Crimea ay cirka isku sii shareerayso qodobadaas iyo kuwa kale ayaan barnaamijkan ku soo qaadi doonaa aan ku bilowno barnaamijkeena daawadayaal maalinta jimcaha ah waxaa furmi doona shirka weyn ee ay isugu imaanayaan wadamada warshadaha ku hormaray ee G20 loo yaqaano shirkaas waxaa hareynaya xiisado kala duwan oo la xiriira madaxda ka soo qayb galaysa waxa ugu horeeya oo aad loo hadal haya dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman ninkaas oo ku eedeysan xadgudubyo ka dhan ah xuquuqul insaanka oo uu ka geystay dalka Yemen iyo sidoo kale dilkii wariye Jamal Khashoggi xaakim reer Argentina ayaa waxa uu raadinayaa in Turkiga iyo Yemen ay ku caawiyaan maxkamadda cadeymo kiiska lagu soo xirayo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya waxa uu xaakimkan doonayaa in wadamadaas ay ku gacansiyaan maxkamadda federaalka ah ee wadanka Argentina sidii loo xiri lahaa Mohammed bin Salman oo eedeymo kala duwan loo jeedinayo Human Rights Watch ayaa cabasho ka dhan ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Mohammed bin Salman waxa ay weydiisatay maxkamadaha federaalka ee wadanka Argentina waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay in ninkaas la xiro sidaas darteed ayaa xaakimka la yiraahdo Ariel Lincho waxa uu sheegayaa in ay markaasi maxkamadda federaalka ah ee wadanka Argentina ay hadda weydiisatay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Argentina inay la xiriirto wadamada Turkiga iyo Yemen iyo sidoo kale maxkamadda dambiyada dagaalka caalamiga ah si loogu gacan siiyo Argentina in markaasi maxkamadeeda ay xirto Mohammed bin Salman ayaa shalay gaaray magaalada Buenos Aires ee dalka Argentina waxaana uu halka kaga qayb galaya shirka G20 ee furmi doona jimcaha soo aadan madax kala duwan oo caalamka ka socda ayaana shirka ka qayb galaya Mohammed bin Salman waxa si weyn loogu dhaleeceynaya in uu amray dilkii wariye Jamal Khashoggi oo lagu dilay qunsuliyadda ay Sacuudi Carabiya ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga isla wararka shirkaas ku xeendaaban iyo Mohammed bin Salman ayaynu ku guda jirnaaye aqalka Kremlinka ayaa arbacadii shalayta ahayd waxa uu xaqiijiyay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya ninka awoodda badan leh ee Mohammed bin Salman MBS ay ka wada hadli doonaan dilka wariye Jamal Khashoggi kaas oo la dilay bishii Oktoobar ee la soo dhaafay wariyaha reer Sacuudi ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudi Carabiya ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga waxa ay labadan hogaamiye yeelan doonaan kulankooda inta uu socdo shirka G20 oo isugu imaanayaan wadamada dhaqaalaha ku hormaray ee adduunka waxay labadan hogaamiye sidoo kale ka wada hadli doonaan suuqa shidaalka colaadda ka taagan Syria iyadoo aqalka Kremlinka ninka la taliyaha ka ah ee la yiraahdo Yuri Ushakov uu xaqiijiyay in kulankaas uu noqon doono mid heer sare ah oo la sii qorsheeyay waqti dheer isla wararkaas haddii aynu fiirino xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isaguna dhankiisa xaqiijiyay in uu diyaar u yahay in uu la kulmo dhaxal suge Mohammed bin Salman inta uu socdo shirka G20 ee uu ka qayb galayo xogayaha guud ee qaramada midoobay kaas oo ka furmi doona wadanka Argentina Antonio Guterres ayaa saxaafadda u sheegay in uu u safrayo Argentina isla markaana uu qorsheynayo inuu la kulmo Mohammed bin Salman ayaa inta badan hogaamiyaasha ka socda Yurub aysan la kulmi doonin maxaa yeelay ninkan wuxuu ku eedeysan yahay in uu amray dilka wariye Jamal Khashoggi waxaana u sii dheer intaas in uu markaasi yahay ninka horinaya colaadda ka socota Yemen iyada oo ay xulafada Sacuudiga ay hogaaminayso ay dagaal xoog la ku qaaday wadankaasi Yemen isla wararka ku xeendaaban MBS iyo Sacuudi Carabiya ayaynu ku guda jirnaaye
labada wasiir ee ugu awooda badan dalka Mareykanka ayaa difaacay kaalinta Mareykanka uu ku siiyay Sacuudiga dagaalka ka soconaya dalka Yemen. labada wasiir ee ugu awooda badan golaha wasiirada ee wadanka Mareykanka waa wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka difaaca ee wadankaasi ayaa waxa ay golaha sanadka hortooda ku difaaceen taageerada Mareykanka uu siiyo ciidamada Sacuudi Carabiga ee dagaalka ka wada wadanka Yemen. waxaana ay sheegeen intaasi ay tahay laga maarmaan ku qotonta baahida ay u qabto Yemen in la helo nabad waarta. waxa uu yiri xogayaha arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka Mike Pompeo oo saxaafadda la hadlay markii uu soo dhamaaday kulan ay su'aalo ku weydiinayeen aqalka sanadka in taageerada uu Mareykanku ku siiyo xulafada Sacuudiga dagaal ka socda wadanka Yemen uu yahay buu yiri mid gacan siinaya buu yiri ergeyga nabadda ee u qaabilsan qaramada midoobay wadanka Yemen Martin kaas oo uu sheegay in uu codsaday in xaaladda Yemen wax laga qabto. wuxuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka ma waxaan dhiirigelinaa xoutiyiinta ma waxaan dhiirigelinaa Iiraan waa maya. heshiiska jilicsan ee hadda taagan waxaan u bedeli doonaa mid adag waxaana aan awoodi doonaa inaan ka dhigno Yemen meel nabad ah. isla wararkaas haddii aynu fiirino aqalka sanadka ee Mareykanka iyaguna waxa ay u codeeyeen 63 ka mid ahna ay codka arbacadii ugu rideen qaraar ogolaanaya in Mareykanku uu joojiyo taageerada military oo uu siiyo Sacuudiga gaar ahaan isbahaysiga Sacuudiga hogaamiyo ee dagaalka wada wadanka Yemen. qaraarkan waxa uu u gudbi doonaa aqalka golaha shacabka ama aqalka hoose kuwaas oo iyaguna laga rajeynayo in ay ansixiyaan. laakiin aqalka cad ee Mareykanka ee madaxweyne Trump uu horboodo waxay ku hanjabayaan in ay adeegsan doonaan codka veto-ga ama diidmada qayaxan ee uu madaxweynaha Mareykanku leeyahay haddii Kongareeska Mareykanku ay heshiiskaas meel mariyaan. heshiiskan waxa uu dhigayaa in Mareykanku uu joojiyo taageerada military ee xulafada uu Sacuudiga hogaamiyo ay ku siiyaan dagaalka Yemen ka soconaya. dhinaca kalena Hillary Clinton ayaa dib u soo laabatay waxaana ay dhaleecayn iyo cambaarayn xoog leh dusha uga tuurtay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. xogayihii hore ee arrimaha dibadda Hillary Clinton sidoo kalena ahayd qofkii la tartamay doorashadii 2016 dhacay madaxweyne Trump ee laga qaaday ama laga guuleystay ayaa waxa ay cambaareen dusha uga tuurtay madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump. Clinton iyo odageeda madaxweynihii hore ee wadanka Mareykanka Bill Clinton waxa ay ku sugan yihiin Toronto halkaas iyadoo ka hadlaysa ayay ka faa'iideysatay oo waxa ay ku tuurtay hadal adag madaxweynaha wadanka Mareykanka. waxaana ay tiri Trump waxa uu duugduugaya oo uu qarinayaa dilkii foosha xumaa ee loo geystay wariye Jamal Khashoggi. waxay tiri waxaan haysanaa madaxweyne daboolaya wixii ka dhacay qunsuliyadda Sacuudi Carabiga ay ku leeyihiin magaalada Istanbul iyo dilkii foosha xumaa ee Mr Khashoggi. waxaan haysanaa madaxweyne kaasi oo kuwa saaxiibada la ah ama u dhow danaha ganacsina ku qaba ilaalinaya maslaxadooda. sidaas waxaa tiri Hillary Clinton xogayihii hore ee arrimaha dibadda ee Mareykanka oo markaasi soo rogaal celisay weerarna ku qaaday madaxweyne Donald Trump. weli waxaad daawanaysaa warqaad tube gaar ahaan barnaamijkii wararka iyo warbixinada caalamka ugu waaweyn. isla wararka bariga dhexe ku saabsan ayaynu ku guda jirnaaye madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in hay-adaha caalamiga ah ay niyad jabiyeen dunida islaamka marka la fiiriyo qadiyadda Falastiin isagoo oo ku booriyey in loo raadiyo ummadaha Falastiiniyiinta ah halgankoodana laga dhabeeyo oo laga dulqaado rejiimka Israa'iil oo xoog ku haysta dhulkooda. Erdogan ayaa hadalkan ka jeediyay shirka 34 ay isugu yimaadeen guddi hoosaadka ururka iskaashiga caalamiga ah ee qaabilsan ganacsiga iyo dhaqaalaha waxaana uu ka dhacay magaalada Istanbul arbacadii. waxa uu sheegay Erdogan in caalamka islaamka uu sidoo kale ka gaabiyay qadiyadda Falastiin isagoo oo hoosta ka xariiqay in Falastiiniyiintu ay xaq u leeyihiin in la garab istaago oo lala shaqeeyo. isla wararka Falastiiniyiinta boqorka Jordan boqor Cabdallah labaad ayaa waxa uu ku celceliyay mowqifkiisa ku aadan sida uga soo horjeedo in Israa'iil ay dhismayaal sharci darro ah ku sii wado daanta galbeed iyo dhulka ay ka haysato Israa'iil. waxaana uu cadeeyay mowqifkiisa ah in la helo xalka laba qaran oo iska barbar shaqeeya. boqorka wadanka Jordan ayaa waxa uu arbacadii fariin toos ah u diray guddiga qaramada midoobay ee xuquuqda Falastiiniyiinta qaabilsan isagoo oo sheegay in dadka reer Falastiin ay u baahan yihiin in la garab istaago. Israa'iil ayaa xadgudubyo aan la soo koobi karin ku haysa shacabka reer Falastiin oo markaasi aan haysan dawlad awood weyn leh oo wax ka qabata falalka cadawtooyada ah ee ka imaanaya ciidamada Israa'iil. isla wararka bariga dhexe ayaan weli dhex maquranaynaa Mareykankuna waxa uu sheegay in ciidamadiisa ay sii joogi doonaan bariga dhexe si ay u difaacaan buu yiri Israa'iil. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qiray
in ciidamada Mareykanka ay baaqi ku sii ahaan doonaan bariga dhexe si ay u ilaaliyaan Israa'iil. Waraysi uu siiyay Washington Post ayaa Trump waxa uu ku qeexay in ciidamada Mareykanka ay ku sugan gobolka gaar ahaan bariga dhexe aan hadda loo baahnayn in la soo celiyo, isla markaana aysan jirin sabab ku ruuxaysa aqalka cad in laga soo saaro bariga dhexe. waxaana uu sheegay in ujeedada halkaas ay u joogaan ay tahay in ay difaacaan Israa'iil cadowga kaliya ee ay leedahay oo ay wajahayso waa Iiraan. hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Ali Khamenei ayaa shalayto waxa uu jeediyay khudbad uu ku baraarujinayo shacbiga jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan oo ah cadowga kaliya ee Israa'iil ay ku leedahay bariga dhexe maadaama wadamadii kale ee Carbeed ay la heshiisay Israa'iil. ayaa waxaa hogaamiyaheeda ruuxiga ah ee Ayatollah Ali Khamenei uu u sheegay inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah cadowgooda oo uu sheegay in ay ku soo maqan yihiin. waxa uu yiri haddii aad badisaan awoodda iyo diyaar garowga waxaan idin cadaynayaa in cadowga Iiraan uusan marnaba idin goodi karin, dadka sharafta leh ee wadankan ku noolna uusan soo weerari karin. Ayatollah Ali Khamenei ayaa sidaas sheegay. waxa uu intaa ku daray hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan in jamhuuriyadda islaamiga ee Iiraan aysan marnaba diyaar u ahayn in ay daandaansato wadan kale oo ay bilowdo dagaal. waa hagaag markana haddii aynu u boqolno xagga iyo Yurub oo aanu bariga dhexe ka baxno, dagaal xoog leh ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhex qarxo dalalka Russia iyo Ukraine, kuwaas oo labadii maalmood oo la soo dhaafay xiisad labada dal u dhaxaysa ay ka taagnayd gacanka Crimea. waxaa laga cabsi qabaa in dagaal u dhaxeeya labadan dal uu qarxo kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee wadankaasi Ukraine ninka la yiraahdo Pavlo Klimkin uu wacd ku maray in dalkiisa uu jawaab military ka bixin doono duulaanka qaawan ee uu Ruushku ku qabsaday 3 markab oo laga leeyahay wadanka Ukraine. Mr. Klimkin wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Ruushka waxa uu soo saaray digniintan xilli uu bixinayay waraysi uu siinayay Sky News, waxaana uu sheegay in marnaba Ukraine aysan aqbali doonin in Russia ay iska haysato muwaadiniinta ka soo jeeda wadankaas. isla wararkaas aynu ku guda jirnaaye waxaa la leeyahay haddii dagaal uu qarxo ka dhaxeeya Ruushka iyo Ukraine, labada dhinacba waxay kala heli doonaan taageerayaal iyo xulafo. NATO iyo wadamada reer galbeedka oo dhan waxay la safan doonaan Ukraine marka laga reebo Mareykanka. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump oo dhawaan hadlay ma uusan cadeyn dhinaca uu la jiro labadan dal, laakiin ambassadorka qaramada midoobay u fadhiya Mareykanka gabadha la yiraahdo Nikki Haley waxa ay sheegtay in Moscow ay daandaansatay wadanka Ukraine. Ruushku waxa uu haystaa qaybo kamid ah saaxiibadii hore ee midowga Sovieti iyo dalal kale ee bariga Yurub dhaca. waxaa sidoo kale la sheegayaa inuu taageero ka heli karo Ruushka kooxda ISIS iyo Iiraan. Ukraine iyo Ruushka colaadda ka dhaxaysa mar dhow sooma bilaaban tan iyo markii Ukraine ay ka go'day Russia inteeda kale oo ay Soviyetkii ka baxday 1991kii. waxaa si xoogaysanayay saameynta iyo faragelinta Ukraine ay ku sameynayaan wadamada reer galbeedka. waxayse ugu darneed markii 2014 meesha laga saaray hogaamiyihii Ruushku taageeri jiray ee Ukraine haystay. taasna waxay keentay in Ruushku faragelin qaawan uu ku qaado wadanka Ukraine, isagoo abuuray jabhado iyo kooxo colaado ka dhex abuura qaybo kamid ah wadankaas, iyadoo ugu dambeyntii uu dhul weyn ka goostay gaar ahaan gobolka Crimea. in ka badan 10,000 oo qof ayaana colaadahaas ku dhintay. isla wararka xiisadan ku saabsan ayaan ku guda jirnaaye madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin ayaa diiday inuu telefoonka kula hadlo dhiggiisa wadanka Ukraine Petro Poroshenko. waxa ay Kremlinku cadeeyeen in uu soo codsaday in telefoonka lagu dhiibo, laakiin madaxweyne Vladimir Putin waa uu diiday. qaybihii dambe ayaynu joognaaye xiisada ka dhaxaysa China iyo Mareykanka ayaa cirka isku sii shareeraysa, iyadoo la filayo in madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo Xi Jinping madaxweynaha Shiinaha ay kulmaan inta uu socdo shirka G20 ee ka dhacaya wadanka Argentina. waxaa la sheegayaa in xiisad adag ay ka taagan tahay badda loo yaqaano koonfurta China, halkaas oo maraakiibta dagaalka ee labada dal ay isku soo shaqeeyaan. waxaa la sheegayaa in gacanka Taiwan ay ku soo dhawaanayaan iyadoo ay China aaminsan tahay inay leedahay badda koonfurta China iyo sidoo kale Taiwan oo ay u aaminsan tahay inuu yahay gobol ka mid ah iyada. xiisada ganacsi ayaa iyaduna ah mid kale oo dheeraad ah. waxaa maalmahan la soo warinayay in xiisada ciidan ee labadan dal waa Beijing iyo Washington ay cirka isku sii shareerisay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa ku kulmi doona inta uu socdo shirka G20 wadanka Argentina gaar ahaan magaalada Buenos Aires. labadan hogaamiye kulankooda waxaa lagu hayaa il gaar ah, waxaa la fiirin doonaa waxyaabaha ka soo baxa. ugu dambeyn Sacuudi Carabiya ayaa waxa ay iibsan doontaa gantaalaha shirkadda la yiraahdo Lockheed Martin ay markaasi samayso oo ah gantaalaha difaaca cirka, waxaana ay ka bixinaysaa $15 bilyan oo dollarka Mareykanka ah.
waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana sidaas xaqiijiyay. Riyaad ayaa sii kordhinaysa iibsashadeeda hubka iyada oo inta badan hubkeeda ka iibsata waddanka Mareykanka, taas oo Mareykankan u ah suuq aad u weyn oo uusan ka heli karin meelo kale oo dunida ka mid ah. maamulka madaxweyne Trump ayaana aad u difaacaya inaan la jarin xiriirka kala dhexeeya Riyaad. barnaamijkeena wararka iyo warbixinada ugu waaweyn caalamka oo aad ka daawanaysan warqaad tube waa naga intaa tan iyo kulantadana barnaamijka lamid ah nabadgelyo.